Audio Jungle. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaasheeda qiimaha iyo qayaalaha meel kastaad joogtaan kusoo dhawaada saylac 24 maanta waxaanu idiin haynaa brogram ku saabsan dhacdo ka dhacday magaalada hargeysa ee jamhuuriyadda somalilan inan dhugmanti ay qaadan lahayd loo diiday iyo sababihii loo diiday waa maxay arrintani saameynta ay soomaalida ku yeelatay iyo keebaa weyn dhacdooyinka dilka dhaca boobka iyo qurgoynta ee ka dhacaya soomaaliya iyo khaladaadka yaryar ee aadamuhu sameeyo ee ka dhacaya somalilan keebaa saameyn leh yaa ka dambeeya buuqan yaa sababa dowladda soomaaliya saameyn ma ku leedahay ay biraha bulshada ku adeegsato siyaasadeeda ku aadan somalilan iyo burburinteeda halkeebay soo dhex martaa yaa uga wakiila waa maxay aragtida ku saabsan in somalilan buuq lagu abuuraa laakiin waa maxay sababta ay somalilan lafteedu ugu nuglaatay sameecadaha bilaa codka ah ee muqdisho ka soo baxaya waxaan ku eegaynaa barnaamijkan daawasho wanaagsan waxaynu la soconnay in bishii iminkayna dhaaftay sheikh weyn oo ummadda soomaaliyeed qaali ku ahaa lagu dilay magaalada kismaayo iyadoo oo aan weli la ogeyn cidda dishay iyo sababta loo dilay laakiin arrintaasi saameyn ma yeelan dhacdo kasta oo somalilan ka dhacda saameyn bay waxay ku dhex yeelataa biraha bulshada waxaana ka hadla siyaasiyiin somalilan joogta qaar soomaaliya jooga iyo dad kaloo qurbaha jooga goormay haddaba aragtidani abuurantay bal aan idinla wadaago dhacdo ka dhacday hargeysa 1988 oo aan ciwaan uga dhigay maqaalo horaan ka qoray hargeysa ma masaajid baa ku yaala kaasi wuxuu ahaa mid ka mid a ciidamadii soomaaliya oo markii la dagaalamayay ee snm iyo dagaalamayeen dowladdii rajiimkii maxamed siyaad barre hargeysa la keenay dabeetana ninkaa waxaa laga keenay muqdisho iyo ereyadaas waxaanu ahaa nin aan weligii arkin goboladii waqooyi iminkana la yidhaahdo somalilan dabeetana waxaa lagu yidhi dad gaala ayaa la laynaya kadib markii la keenay hargeysa ayaa wuxuu arkay muse jaamaca weyn ee hargeysa dabeetana askari ka mid a askartii ayaa wuxuu ku yidhi meeshan ma muslimiin baa ku noolayd taasi waxay ahayd saameynta dowladdii maxamed siyaad barre iyo warfaafinteedii ay ku yeelatay dhegihii dadka soomaaliyeed haddaba su-aashu waxay tahay waayo dadka necab somalilan ee soo huwada calanka buluuga ahi dadka soomaaliyeed miyaysi necab yihiin laakiin arrintani xaggee bay ka jirtaa ma jirto nacayb isira oo u dhaxaya dadka soomaaliyeed meel kastoo ay degan yihiin waana dad walaala laakiin cadaawad weli loo qabo somalilan ayaa waxaa lasoo dhex mariyaa calanka buluuga waxaana soo qaada dad u shaqeeya maamulka farmaajo iminka dowladda farmaajo iminka waxay fahantay dhaqaalo fara badanna ku bixisay in sidii somalilan mar uun loo wiiqi lahaa maadaamuu jiro khilaaf ka dhashay doorashooyinkii somalilan oo weli aan la xaliilin dowladaha dimuqraadigaana waxaa ka dhasha oo lagu kala fogaadaa oy dadkooda ku kala fogaadaan kolba waxaa loogu yeedho xanafta doorashada siyaasiyiinta somalilan waxay u nugul yihiin dhawaaqa ka soo baxaya muqdisho ee dowladda farmaajo wado laakiin facebooka aan dhaafsiisnayn su-aasha maanta taagana waxay tahay waa maxay sababaha aan damiirku qaadan karin ee mar kasta ka dhaca soomaaliya oo looga hadli waayey ee dhimasho leh ee dhac leh ee barakicin leh iyo dhacdooyinka yaryar ee aadamuhu sameeyo ee somalilan ka dhacaa maxay u yeeshaan saameyn bal tusaale yar aan idin siiyo cidda ka dambeysa iyo bal meesha lasoo dhex mariyo dowladda soomaaliya ee madaxweyne farmaajo iminka hogaaminaya waxyaalaha ay ku guuleysatay waxaa ka mid ah sida loo sameeyo brobagando iyo been waana arrinta keliya ee la faa'iiday muddadii 5 sannadood ee iminka madaxweyne farmaajo kursiga joogay dhaqaalo fara badan ay ku bixisay aragtida wuxuu kasoo qaatay farmaajo dowladdii kacaanka oo brobagando fara badan fidin jirtay dowladdeediina guul ku gaadhsiisay waana arrinta keentay in iminka baraha bulshada dowladda soomaaliyeed ay xoog ku yeelato kuna maamusho somalilan weli may fahmin halka ay sartu ka quruntay taasina waxay ku keenaysaa in mar kastay dib u socdaan inay baraha bulshada iyo warbaahinta ay ku adkaanayso dowladda soomaaliya waana wax muuqda oo aan u baahnayn xilliga sharaxaad
laakiin goormay dhacday haddaba si aad u ogaato adigaagan i daawanaya meeshaad rabta kasoo jeedo soomaaligaad rabta ahaw deegaankaad rabta ku noolow ama somalilan ku noolow ama soomaaliya ku noolow ama kilalka shanaad ku noolow weli way jirtaa aragtidii ahayd hargeysii ma masaajid bay leedahay si aad u fahanto dagaalka siyaasadeed ee ka dhexeeya soomaalida waa inaad marka hore noqotaa qof yaqaana xisaabta laba ugey waa zero maxay zero u noqotay cid kastaa ciday necab tahay cadow bay weli u tahay aragtida in soomaali la kala fogeeyo qaar gaalo lagu sheego qaar dad aan waxba fahmin lagu sheego oo foorara qaar lagu sheego dadka ka sarreeya waa aragti jirta waa anigoo xabsaaq axmed jaamac idinku dhaafaya assalaamu calaykum waraxmatullahi ereyadii abwaad siciid sheekh abubakar alkajiib laxankii qoomaha muusigii mucjisada muusiga mustafa karaama codadka fanaaniinta kale ah gaadaco cabdulqaadir eji igraan caraale mandela cabdi hoolan semsem farxaan badacas faysal maxamed farxiya fiska iyo faysal yuusuf faysal yare waana hambalyadii iyo duubistii karaama studio Sakala